Magaalada Nairobi shalay waxaa lagu sameeyay qoys Soomaaliyeed oo nafsadooda ay halis gashay. Sidoo kale waxaa ka bilowday raf oo xalay dad badan ayaa la qabtay gudaha guryaha ayaana la isugu gelayaa. Haddaba maxaa ka soo kordhay xaaladaha magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii oo Soomaalidu ay aadka ugu badan tahay? Waxaan rabaa inaan kula wadaago xogihii ugu dambeeyay ee xaaladda Islii iyo sidoo kale qoyskii xalay la sameeyay. Inta aanan xogahan iyo muuqaaladan kuu soo bandhigin daawada, waxaan kaa codsanayaa muuqaalkan inaad meel fog la gaarsiiso si dadka Soomaaliyeed ee Kenya jooga oo muuqaalkan u gaaro, amase qof walaal ama ehel la ah haddii ay jiraan dadka xalay la qabtay eheladooda si ay u ogaadaan. Lamana yaqaano in lasoo raafi doono iyo in lacaga inta laga qaato lasoo dayn doono. Haddaba nagu soo bir haddaan ugu cusub tahay waa mahadsan tahay. Marka hore aan ku bilaabo, xalay waxaan helnay xog sheegaysa in ehel Soomaaliyeed ama qoys ka kooban 7 qofood oo cunug 4 bilood ah ku jiro lagu sameeyay xaafadda Donholm, gaar ahaan Phase 8. Dadkaasi waxaa la sheegay inay sameysay naag shaqaale u ahayd oo ka shaqeynaysa gurigooda oo ka carootay kadib markii ay ciddu ku wargeliyeen in shaqada ay isaga tagto markii ay sameyso shaqadan ay ku jirto, maadaama ay noqotay qof aan ku habboonayn shaqada oo sida la rabay aan u shaqaysanayn. Haddaba qoftaasi ayaa sun inta qaadata waxay ugu dartay cunada, waxaana xanuun ku soo booday markii ay wax cuneen kadib. Hooyadii iyo 6 caruur ah ay dhashay 5 caruur ah ay dhashay marka laga reebo midkii 4 bilood jirka ahaa, kaas oo aan weli la siinin caanihii ay naagtu u sameysay. Haddaba naagtii ayaa dhacday markii ciddu tacbaan noqdeen oo qof kasta meeshiisa ku dhacay wixii hanti guriga u yaalay oo dahab iyo lacag ahaa. Laakiin iyadoo albaabka ka sii degaysa ayaa waxaa ka hor yimid wiil markaasi ka tirsanaa qoyska oo dareema naagtan in markaasi ay wax damacsan tahay ama ay wax wado. Bacdeedii iyo wixii ayadoo wadato ayuu guriga dib ugu soo celiyay. Kadib xaaladda guriga ka jirta ayuu arkay, kadibna waxa uu saaray ama uu wacay gaari ambalaas ah. Ciddii waa lagu qaaday, alxamdulillaah waa la daaweeyay. Hadda caafimaadkooda sida xogta aan ku helayo waa 100% maasha Allah. Ilaahay caafimaadkooda ha u siyaadiyo. Kan yar oo 4 bilood jirka ahna waxba ma gaarin. Haddaba booliska ayaa gabadhii la xisaabtamaya oo sharciyadeedii iyo wixii cid way hayeen. Baarisna waa ku socotaa. Wixii ka soo kordhana waa inay caafimaad qabaan. Iyadana ay markaasi sheegtay inay ka xanaaqday in la yiri shaqadan isaga tag, sidaasna ay rabtay qoyskan inay u lahayso. Haddaba xogtaas intaan haynay waxaan helay xog sheegaysa in hadda ka hor sidaas camal gabar lagu sameeyay in la yiri shaqada isaga tag, oo markaasi arrinkaas ay ka xanaaqday. Madowna ay dadkan yacni aan ilaahay Kenyaati ah kadib ay sameysay in ciddii ay u shiido dhalo. Ilaahay idinku dhaarshay bal ila dhageysta. Dhala ay ciddii u shiiday kadibna qaarna cabitaan miyay ugu dartay ma aqaan, qaarna cuntada ugu dartay. Ciyaalkii oo waxaa la arkay dhig matagay oo yacni dhaawacyadii gudaha ay dhaawacyo ka yeeshay, qaar afka ka jeexday. Yacni waxyaabaha adugu aan la yaabay ay u noqotay dhacdadaasi markii la ii sheegay. Tii xalan hadda waa taas mid iska cad oo aan muuqaaladeeda la wadaagno. Naagtii la wadaysa xitaa muuqaalkan kan ka horreeyay aan idinku soo bandhigin. Haddaba qaarkood waxaa la sheegay xitaa sixir inay isticmaalaan oo ay ku kala geeyaan reerka, inay caruurta ay naaf ka dhigaan, in qaarkood ay wax waala u adeegsadaan, waxaas oo dhan in caruurta ay haleeyaan, inay fadareeyaan, in qaarkood cudurro ay keenaan. Qof kasta Soomaaliya fadlan ha iska ilaaliyo. Dhinaca kale, magaalada Nairobi xalay waxaa ka dhacay raaf badan, waxaana inta badan culays ku saarnaa xaafadda California iyo dhinaca jaamka sida xogaha aan ku helayno. Meel kastana ciidamo military ayaa lagu soo daadiyay, kuwaas oo dadka weydiinaya ID iyo haddii ay wataan sharci kale oo ay waddanka ku joogaan. Xitaa horey waxaan u dhicin ayaa jiray oo xalay mootooyinka ama boodooyinka ayaa la iskala degayay oo dadka shacabka Soomaalida lagala degayay si markaasi loogu sameeyo baaris. Xalay dad badan ayaa la qabtay oo baabuurta looriga ayaa la saaray, waxaana watay booliska Pangani. Ilaa iyo haddana qof la soo daayay oo aan maqalnay haba yaraatee ma lahan, sida ay ugu soo wargelinayaan dadka ku sugan magaalada Nairobi. Raafkaas xooggan ayaa socda oo lagu wadaa dadka Soomaalida oo ku sugan dalka Kenya. Dhinaca kalena waxaa jira qorshahan inay mataqaanaa riixayaan siyaasiyiinta Soomaali sujuuga ah iyo sidoo kale shacabka oo culays ku dareemay
dhacdooyinkii ugu dambeeyey iyo sidoo kale in dhalinyaradii ka yimid Soomaaliya iyo Soomaalida Itoobiya in markaasi ay ka riixayaan amase ay shaqadii ku cariiriyeen iyagoo fursadahaas isbiirsadeen una xaglinayaan dhacdooyinkii uu geystay Haashim ayay waxay u ololeynayaan in Soomaalida laga saaro. Waxyaabaha la yaab kale ayaa tahay in ciidamada guryaha loogu geynayo oo la dhahayay apartmentiga waxaa degan Soomaali amase Soomaalida caadiga Soomaaliya ka imaatay ayaa degan, markaasna ciidanku ay guryaha ugu galayeen. Waxaad dareemi kartaa cadaawad ay u abuurayaan dadka walaalahooda wadankaana iyagu ma lahan, kuwan kalena ma lahan, wanaag gooni oo loo haayo hadday sheegaanna ma lahan. Kenyatis kale ay ula siman yihiin Soomaalida, laakiin Soomaalidu ganacsi badan ayay ku leedahay Kenya iyagoo wax sharciya xitaa qaarkood aan haysan amase kibaandooyin wadankan ka samaysta. Qofka Kiswahili yaqaana waa u fududahay in mataqaanaa markaasi sharci haddii uu haysto wadanka joogo, laakiin Kiswahilina mataqaanid xitaa ID haddaa haysto xitaa kuma celi karo oo markaasaaba riski kale sii galaysaa. Marka Soomaalidii iyaga ayaa isweeraraya oo isu adeegsanaya baraha bulshada oo boolisku isugu wacaya oo markaasi is sheegaya si la isu raafo. Marka xaalka Nairobi xalay sidaas ayuu ahaa, guryaha xaafadda California guryo badan la galay, dad badan oo Soomaaliya banaanka la isugu keenay isagoo qabowduna daran hadda wadanka ka bilowday sidii la sheegayo. Markaasi dadkiina waxaa lagu guray loori gaari weyn oo ciidan ayaa martaqaana laga buuxiyey, kadibna waxaa loo qaaday saldhigyaasha markaasi sida Bangani oo kale. Waxaana laga yaabaa in dalada ugu horeyso oo dad Soomaali oo aan sharci lahayn laga dejiyo magaalada Muqdisho, maadaama dowladda Kenya ay aad uga carootay Haashim inuu Kenya ku xasuuqay dad fara badan oo markaasi Soomaali ah, falal amni darro kale oo ka geystay, oo ahaa nin agency ah oo ka macaasha bini'aadamka xubnahooda, sidoo kalena ka ganacsada internetka dadka wax ku dhaca tahriibiye dadka, sidoo kale ka shaqeeya tirtiridda falalka meesha ay ka dhacaan falalka dadka lagu waxyeeleeyo, sidoo kalena ahaa nin xasuuqe ah oo mataqaana dadka xasuuqa oo gabar iyo wiilna midna aan deynin, dalal kala duwan dad wax kusoo waxyeeleeyay si Soomaaliya iyo Soomaalida Itoobiya iyo sidoo kale magaalada Nairobi ee Kenya. Haddaba waxaasoo isbiirsaday ayay ka carootay dowladda mataqaana Kenya. Intaas kadibna Soomaali sujuugii ayaa fursaddaas ka faa'iideysanaya oo Soomaalidii iyo dowladdii u kala turjumaya kuwaas oo raba in Soomaalida laga saaro dalka Kenya, iyadoo la dareemi karo 80% Soomaalida ganacsiga kale dalka Kenya inay tahay Soomaalida caadiga ah ee aan ahayn kuwa la haysto oo Kenyaatigu ama ay haystaan Itoobiyaanku. Waa ku mahadsan daawashada muuqaalkan meesha la gaarsii waa mahadsantahay.